ku dhawaad 400 oo arday oo dhameysatay heerka koowaad ee jaamacadda Banaadir ayaa munaasabad loogu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabadaasi waxaa inooga qayb galay wariyahayaga Cabdiraxiin Caylaabe oo nooga soo warrama magaalada Muqdisho. xafladan oo ay ku qalin jibinayeen 364 arday oo dhameysay kulliyadaha kala ah caafimaadka, waxbarashada, cilmiga kombiyuutarka, injineeriyadda, xanaanada xoolaha, beeraha iyo kulliyadda shareeca wal qaanuun ayaa xafladooda qalin jibinta waxaa ka soo qayb galay madaxda ugu sareysa jaamacadda Banaadir, dhaqaatiir, waalidiin, qaar ka mid ah barayaasha magaalada Muqdisho iyo marti sharaf kale. ugu horeyntii gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Professor Cabdirasaaq Axmed Dalmar ayaa sheegay in sanadkan jaamacadda Banaadir ay soo saartay dhaqaatiirtii ugu badneed ee dalka u soo baxda iyo aqoon-yahano kale oo bartay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda bixiso. kulliyadda caafimaadka waxaa maantay soo dhameystay shahaado 6 sanadood ah oo aqoonta dhakhtarnimada iyo daaweynta qalliinka ah 155 dhakhtar oo isku jira gabdho iyo wiilal. waxaan leeyahay hambalyo, waana taariikh ahaan markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliyeed intay jirtay Soomaalida dawladii hore iyo haddaba oo hal maalin ay qalin jabiyaan 155 dhakhtar. marka waxaan leeyahay taariikh baa samayseen ardayda kulliyadda caafimaadka. waxaa kaloo dhinacan iga fadhiya midigta arday ayagana soo dhameystay kulliyadda beeraha oo muddo 4 sano soo dhiganayay oo tiradooda ay dhan tahay 64 aqoon-yahan oo beeraha soo bartay ayagana waxaan baleenaynaa. waxaan ka marnaynoo professorkeedina hore u aragteen professor Kulmiye, dhaqaatiir 55 dhakhtar ah oo ayagana soo bartay cilmiga daaweynta iyo xanaanada xoolaha. ayagana waxaa leena ku soo dhawaada. waxaa kaloo ka mid ah 24 macallin oo soo baratay muddo 4 sanadood ah shahaadooyin iyo aqoonaha kala duwan ee macallinimada. waa ogtiin macallin la'aantiisa wax la noqon kara ma laha. marka kulliyadda waxbarashada runtii waxay ka mid tahay kulliyadaha asaaska u ah jaamacadda Banaadir oo ahaydna kulliyaddii labaad oo la furo mediciinka markay ku xigtay. waxaa kaloo nala fadhiya 23 injineer oo ayagana bartay culuumta kombiyuutarka iyo maaragtay information technology-ga. ayagana waxaa leeyahay soo dhawaada injineer, hawl badan ayaa idin sugaysa. waxaa jira ayagana 24 injineer oo soo bartay civil engineering iyo electricity and electronics engineering oo muddo 5 sano ah nala soo jooga. ayagana waxaan leeyahay hambalyo. Professor Cabdirasaaq Dalmar ayaa ardayda maanta dhameysay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda kula dardaarmay. waxaan idin kula dardaarmayaa marka wixii maanta ka dambeeya waxaa tihiin dad mas'uuliyiin ah oo aqoon-yahan ah oo maaragtay mas'uuliyad naftoodana ay ka saaran tahay, waalidkii soo koriyeen oo ka saaran tahay, bulshada Soomaaliyeedna ay ka saaran tahay. marka waxaan idin kula dardaarmayaa aqoonta marna ma dhamaato. aqoonta inaad sii kordhisaan, inaad raadsataan shahaadooyin kaleeto sare, inaad raadsataan continuous professional development wax la yiraahdo. bulshada aad la dhaqmaysaan inaad kula dhaqantaan aqoon iyo akhlaaq haddii la yiraahdo. waxaa wadiin magaca iyo sumcadda jaamacadda Banaadir. Senator Professor Cusmaan Maxamuud Dufle kana tirsan aasaasiyaasha iyo maamulka sare ee jaamacadda Banaadir ayaa u hambaliyay ardayda maanta qalin jabisay wuxuuna u rajeeyay mustaqbal wanaagsan. hambalyo qalin jabiyaasha maanta kulliyadaha kala duwan ee 6 kulliyadood gaaraya iyo tirada 365 u dhow. waxaan idinku hambaleynayaa hambalyo qalin jabintiinan qabla kulli shay. tan labaad waxaan leeyahay mustaqbal wanaagsan oo ifaaya biidnillaahi tacaala aan ilaahay idinka rajaynayna insha allahu tacaala. sidoo kale waxaan u hambaleynayaa waalidkii muxuu ahayd qalin jabiyaasha oo maanta qaar badan filaya inay goobjoog ka yihiin. sidoo kale waxaan u hambaleynayaa maamulka jaamacadda oo iyo mu'asasada jaamacadda Banaadir oo ku guuleystay markii ugu horeysay taariikhda intii soo jireen jaamacadaha Soomaaliyeed in 364 qalin jabiyeed oo kulliyado kala duwan maanta ay ku guuleysteen jaamacadda Banaadir iyo mu'asasadeeda inay qalin jabiyaan. waa guul weyn oo u soo hoyatay jiritaanka magaca iyo maamulka iyo maamuuska jaamacadda Banaadir ay ku leedahay muxuu ahayd Soomaaliya iyo dibadda. Dr. Cabdullaahi Sheekh Xuseen Bushkuleeti gudoomiyaha mu'asasada jaamacadda Banaadir ayaa sheegay inay ku guuleysteen arday badan oo dhameysay kulliyadda caafimaadka ay ka shaqeeyaan wadamo kala duwan oo caalamka ah.
waxaan ku guuleysanay dhaqaatiir badan oo ka baxday kulliyadda caafimaadka inay ka shaqeeyaan wadamada kala duwan caalamka sida Norway, Sweden, Australia oo halkaas ay ku guuleysteen inay mataqaanaa ka qaataan darajada labaad ee waxbarashada qaar badan dalka ay ku soo laabteen ay jaamacadda ka yihiin. ugu dambeyntii qaar ka mid ah ardayda ka qalinjibisay jaamacadda Banaadir ayaan weydiiyay dareenkooda. maanta maalin ciid ii tahay farxad ii tahay waxaan ka qalin badashtay jaamacadda Banaadir qaybta caafimaadka maalin farxad ii tahay waxaan u mahadcelinaa walaalahay waalidiintay asxaabteeda iyo jaamacadda maamulkeeda oo intiina ina taageertay insha Allah. waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inay tahay qalin jibinteeda iyadoo ay ku beegan tahay taariikhda 19 bisha 2017 waxaan ilaahay markuu horeysa waxay mahad u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala oo ii suurtageliyay inaan gaaro hadafkeyga. jaamacadda Banaadir ayaa waxa ay ka mid tahay jaamacadaha ugu facaweyn magaalada Muqdisho waxaana ay soo saartaa sanad kasta arday badan. Cabdiraxiin Xuseen Caylaawe, Somali Cable, magaalada Muqdisho.